mudane madaxweyne waxqabadkaas la sheegay ee muuqda een qarsoonayn ilaahay baa suurto geliyey laakiin asbaab badan buu lahaa mid ka mid ah oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa inaad adigu na dhiiri gelinaysay nagu hogaaminaysay aada uga warhaysay wixii nagu adkaada mar walba aan kula soo noqonaynay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya waa ku mahadsantahay waxaa kaloo mahadcelinayaa guddoonka labada aqal iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo la-aantood aan waxaasoo shuruuc ah oo dalkan dhisay oo deynta lagu cafiyey oo cunaqabataynta hubka lagu qaaday oo wax soo saarka ama dakhliga gudaha kor loogu qaaday oo ganacsigu uu kor ugu kacay dhammaanba guulaha la gaadhay waxaa bays u ahaa shuruuc iyo institutions la dhisay ayaa lagu gaadhay shuruucdaasna ma suurto gasheen haddii aysan nagala shaqayn aysan noogu dhaganuglaan mas-uuliyad aysan dareemin qaran labada aqal iyo guddoonkooda marka iyagana waan u mahad celinayaa aada iyo aad buu mahadsan yihin waxaan u mahad celinayaa wasiirada xukuumadda dan qaran oo runtii aan dhihi karo waa madaalayaal iyaga oo aan ogahay duruufaha ay ku shaqaynayaan haddana xil weyn isa saara dadaal badan soo muujiyey soo bilaabay ilaa ay qof waliba wixii loo diray aan kala xisaabtanno oo deedna aan aragnay qaarkood inay boqolkiiba boqol wax ku dhow ay keenaan annagu sidaan u shaqayno waxaa laga yaabaa inaan ka bedelanahay xukuumadii hore waxyaabaha guulaha keenayna ay ka mid tahay waxbaan u kala saxiixanaa heshiis contract ayaan kala galaa aniga iyo wasiiradu wasiir walba waxaan heshiis baan la saxiixdaa oo ah waxa uu qaban doono sanadkan waxa uu qaban doono 6 bilood ee ugu soo horeysa heshiiskaasaan deedna dhowaana ayaanu ku xisaabtanaa deedna hadda waxaabanu keennay inaanu sidii imtixaanadii qofka inaanu u saxno nidhaahno adiguna waad guulaysatay adna waad dhacday adiguna a baa tahay adna b baa tahay adna c baa tahay taasi marka waxay keentay inay guulahaasi runtii ay dhashaan intaa marka laga tago mudane madaxweyne wixii la qabtay waasaan sheegay waa qoran yihiin waana la sheegay intaasu dhaafi maayo waan hubaa in wax badan oo aan qaban karnay oo kale ay jiraan laakiin laga yaabo inaan ka gaabinay duruufo mucayana in ay hor istaageen waxaanse rajaynayaa insha allah in aanu marba marka ka dambeysa inaan kasii fiicnaanayno waxaan jeclaan lahaa inaan dhowr kelimo ujeediyo shacabkeenna iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan sida aan horeyba anigu in badan u sheegay waagii ugu horreysay waxaa la dhihi jiray dadkan xukuumadda madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxay u socdaan dalka waxay u wadaan meelaan la garanayn marka anu berigaa waxaan idhi way fiican tahay waa run meel aydaan garanaynin baan idiin wadnaa maxaa jira meeshaad garanaysaan waan garanaynaa waxay ku dambeyn jirtay marka in meeshii aad garanayseen laydiin wadaayay faa'iido ma leh maxaa jira waxay kusoo dhammaan jirtaan naqaanaa dadkuna waxay jecel yihiin serkalkii lagu wareegi jiray in lagu wareego annana waxaan rabnaa wixii wax ka duwan inaan keenno sheekh cali wajiis baa ku furfuray inuu ilaahayna ina rabo haddaan rabno inaan wanaagsanaano waa inaan jidkii ka leexano jid ka fiican aadnaa jidka ka fiican kulla yaqaanay ma aha
maanta marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego mid ka mid ah sheekha sheegay Soomaalina way og tahay dawladdan wada jirkeeda iyo midnimadeeda iyo deganaanshaha iyo isfahamka iyo isku kalsoonida madaxda qaranka waa arrin cusub waana arrinta keentay guulahan in la gaaro ayadana oo asaaska u ah taasi way idinku cusub tahay Soomaaliyeed marka miyaad ku rayseen mise waad eedeen waxaa kaloo idinku cusub dalkaani markii ugu horreysay inuu yeeshay vision 30 sano ka badan la garanayo Soomaaliya meeshay u jeedo 30 sano ka badan ilaa 2060 vision ah oo visionka qaranka qarniga ah oo Soomaaliya 100 sano markay jirsatay Soomaaliya say u eg tahay ah ayaa la dejiyay oo la qoray oo diyaarsan laamigaas noo jeexan waxa kale leen way fog tahay 60 sano waxa la dhigay qorshe la yiraahdo isbedelka qaranka oo in Allah la yughayyiru ma biqawmin ku salaysan oo isbedel ah oo la rabo qaranku inuu isbedelo qorshahaas oo 5 sano ah oo jidka dheer ee 60 sano ina geynaya la sii dhexsin dagayo oo 5 sano meel la sii dagayo oo 5 kale meel la sii dagayo sidaa darteed istiraatiiji cad oo fog oo vision ah iyo qorshihii lagu gaari lahaa yoolkaas oo degsanna oo Soomaali ku cusubna waa idin haynaayo waa idin dhigay marka kaasna waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii Soomaali ay ku baraari lahayd Ilaahay idinkiis wuu noqonayaa waana sheeko cusub oo Soomaaliya ku cusub waxaan rabnaa marka mar hadday sidaas tahay oo meesha aan u socono ay caddahay in aan dadka Soomaaliyeed aan la waswaasinin oo waswaasku waa iska jiraaye ama insa ka yimaada ama jinna ka yimaadee waxa loo baahan yahay in la waswaasino jidka lagu socdo waa in dadka Soomaaliyeed ee maanta ay u caddahay jidkay qaadayaan iyo istiraatiijiyadda iyo qorshayaasha ay dawladdan dejisay xukuumaddan dejisay ee loo socdo dadka u cad yihiin yaan la mashquulin waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeedu waxaa la rabaa inaad ka gudubtaan inay idin mashquuliyaan dadka qaar aan naqaano oo mushkilad haysato kibir shakhsi ah iyo isla weynaan bilaash xaytanimo ah oo aan shaqo la jirin dood candhoola ah oo madhalaysa oo maalin walba media lala taagnaado iyo siyaasadda oo loo qaato inay tahay mashruuc dawladda shisheeye looga bil qaato yeysan idin lu goyni waxaas meesha loo socdo way caddahay marka yeysan idin mashquulinin kuwaas waa taqaanaan annaguna waa naqaanaa ayaguna way siiqaanaan duniduna way taqaanaa intaas marka laga tago maanta waxayna hor yaalla laba arrimood oo waaweyn oo aan u baahannahay inaan dadka Soomaaliyeed inay si xoog leh uga qayb qaataan si aynu u xaqiijino visionkan aan hadda sheegayay iyo isbedelka labadaas mid waxa weeye waa midkii inoo socday ee aan ka shaqaynayno oo ah dalka inaan ka xoreyno khawaarijta arrintaas mar walba waa priority mar walba waa waxa horteminta inoo leh waa inaynu marka anigoo u hambalyeynaya
geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadeena kale qalabka sida dadaalka ay sameynayaan oo waliba maalmahan iyo waayahan dambe runtii ayada oo aan la buunbuurinayn oo xataa silent operation uu jiro oo inaan laba hadlin aad moodo inaan istaraatiijigaas hadda aynu qaadanay haddana maalmahan runtii waxaa socda horumar weyn oo lagu dabar jarayo khawaarijta waxaa loo baahan yahay marka in dadkeenu u diyaar garoobaan hadday joogaan caasimadda iyo haddii ay dowlad goboleedyada joogaanba intaba la dagaalanka nimankaas iyo in la dardar geliyo in la dabargooyo qoladaas hadday tahay fikir ahaan sidii loo dejiyey horay oo markii ugu horreysay istaraatiijiyada la dejiyo ogtihiin fikirka in lagala dagaalamo in dhaqaalaha lagala dagaalamo iyo in awood lagu muquuniyo oo qoriga lagula dagaalamo intaba halkeeda inay ka socoto waaye qodobka labaadna waxaa waaye waa arrimaha doorashooyinka diyaar garowga socda waad ujeedaan dowladdu waxay diyaarisay wax alla wixii shuruuc ah guddigiibaa doorashada ayaa la sameeyey way shaqo galeen qalabkii u baahnaayeen oo dhan baa la keenay tababar baa la siiyey horey shaqo ka bilaabeen registrationkay bilaabeen codbixiyaasha muqdisho keligeed ayaa milyan cagacagaynaysa maanta dadka codbixiyaasha jooga dhammaan dowlad goboleedyada laga soo bilaabo waqooyi bari oo weliba habeenkii ayagu bilaabay waa arrin cusub inay isregistrayaan galmudug hirshabeelle south west iyo caasimadda intaba way ka socotaa jubbalandna ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa ayagana inay ka bilaabato waxaan rabnaa marka dalka in dowladihii hoose ayaa siday guddigu inoo sheegeen octobertan bilaabanaya marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan in dhidibada loo aaso dimuqraadiyadeyn dalka iyo in dadkeenu 60 sano 69kii kadib himiladii ay doonayeen oo ahayd markii ugu horeysay inay awood u yeeshaan shacabkeenu inay go'aan ka gaaraan jaan gooyaan cidda hogaaminaysa waa arrin aad u weyn runtii oo dastuuri ah oo dadkeenu ay mutaysteen oo ay xaq u leeyihiin maantana dowladdana suurto gelisay waxaan rabnaa in arrintaana si weyn loogu soo baxo la isrejistareeyo loo diyaar garoobo doorashadaas si ay dadkeenu markaynu dooranno dowladaha hoose kadibna aynu dowlad goboleedyadii uga gudubno kadibna aynu tii heer federaal ee nationalkeeda aan uga sii gudubno aad iyo aad mahadsantihiin aniguna waxaan kusoo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda